madaxweyne khasaarayha iyagiina tusaale ka baro oo laascaanood dagaal ha ku qaadin laascaanood iyo ilaahay isu daa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland baan ugu horeysiinayaa nimankan qariibka ah meeshan kaga soo horeeyana waa salaamayaa ee bacbacda haya waxaan leeyahay meeshan waan joogi jiray way igu timaadeen waan idinku soo dhaweynaya horta ta kale waxaan leeyahay madaxweyne ninba waxbuu soo wadayo horta waxaan meesha laga wadwaday waan nimankan kafta wadaagda loo mulay hore waa dagaal badan oo soo wada mara laakiin nin dagaal galay oo dhacay oo guuleysteen u bajira maanta way sheegay qolo wadaniya madaxweyne faato waxay 45 abwaan bay soo tiriyeen oo ka qayb qaatay halgankaaga iyo 60 heesood iyo keligay waliba madaxweyne nin umadooda meel la socotay baan haydo shaki badan oo waalid ku ridayo baylaan seexan horta jaayisada horeeyeen aniga la siyaabay madaxweyne oo la yahay ma taalaale imikana waxa leeyahay anigu madaxweynaha kamaan ololeyna qaranka loo ololeyay qaranka in qof taageerta muhiim ah waxa muhiim ah in qaranka horta loo wada siman yahay qofkuna mabdiisa ku dagaalamo aniga maalintii madaxweyne aad soo baxday ayaad madaxweynaha noqotay dagaal ma yaraysan xabaar ma yaraysan laakiin maalintii ilaahay soo saaray baan uu amr weeyo madaxweynaha dagaal iguma jiro laakiin rag badan oo dagaalansan baa kula socday adna wada weynaba dagaalamaysi adiga waxa ku daran madaxweyne qarannimada ninka kaala shaqeeya wax ku ah ninka ku amaana waxba kuma aha ninka ku caayana wax kuma aha anigu qarannimadaas baa laygu imaadaa ka dambeeyna walaag fadhiyaaw waayo dalku maanta halka uu marayo adigu dalka dhismaasleeda madaxweyne dadkii bay naga baabay dadka dhismihiisa baa ka horeeya dadka dhismihiisa aniga in TikTok raabay taageersan oo kuwii dhacada qolada intii kula socoto baa taageersan madaxweyne wax allaale wax isugu ma jiraan laakiin anigu kuwaygu waa la soo hadli karayaa waxaan leeyahay madaxweyne inaga heliyo waynu shaqeynaynaay oo qarannimadaynu mid u wadanahay qolada kale waxa weeye inay iyaguna hubka dhigaano waa madaxtooyadii dadkuna uu ku wada jiraa laba kala maqanaanayee mudiir madaxweyne aad in loo dardaaran doonaya ninka dagaal adag baan soo wada mar nin kale oo aan maqarbaabaya ma jiro mudiir baash way dhamaatay agaasimaha igi baata dagaal subayna yaraysan waa kula shaqeynaya dadkiina waxa haysta madaxweyne fanka abaal baan kugu haynaa caawa inta hore loo laba casuubiba taan ka iminana ma casuubin وانا naga shakirisanaydana Muuse bixi lamu diranba wali lamu oran waxa soo sameeya waa kuwa xidigii saaw hadla anaga mabdaayaga ku hadlayno wado qaranimada wadi anaga xabar baagayni anaga idinkala hadlayni waa talay soo gaadhay oo macquuladii baan arkay wadani barigii maagiisii xabarta waa kuwa maanta ugu carada xun warbahasha horaan u sheegay anigu madaxweyne khasaarayha iyagiina tusaale ka baro oo laascaanood dagaal ha ku qaadin laascaanood iyo ilaahay isu daa madaxweyne hadduu yimaado wuu yimi khasaara ka baxay dhaqaala ka baxay uu noqonayaa anigu dadkan kula dhisaya anaga laftayada waxba naga khaldan qolaba sibay wuxuu yeelaysaa qoladeeda fanku uma wada saxsanin anigu koox baan ka shaqeeyaa koox baan haystaa wasaaradda warfaafinta wasiirkayga waanu saragnay Allah daayo waanu ballan qaaday anigu madaxweyne qarannimo la igu imanaya waan kugu taageerayaa wixii tala ee gaarana haddii albaabkaagu ay furmaan nimanka iga hor dhaqaaqa waa ku keenaya waana ku salaamaya waana kula shaqeeyaa qarannimadana igu ogow